صاحب يال سود هذا وعد سر أي نجودا نك يوسف بل وح أوقاتان يوسف ما أنت قف وياها دتك الشال يوسف ودجالمي ما أنت هذا اللي ذو كل هاي عصر بالغ ضوء بل عد كسلا دعوة صاحب ساتاي وانما يا وانا يوسف لدي حالة هذا كورا يا ورطنين وعاطاي أو ورياه أو ورياه نكاتو ورياه وحالة ربا إنه حقوق الدنيا ذا مكو إلى عليا كورا هذيك السؤال تاسا نضم بس يوسف لكن يوسف كي الرميسة معلومة كنت رسمها يوسف إلى الله تعالى فردان كتوسي يا ورد في ورتنا كتو صرت عرفت أنا هذا كومانة ترسلني كورا إيه كادي أديكو ما سن يوسف لو مرن كسوع ويقويسي ويقدميسي أنا لكن واحد أنا استوديو ستة كو قوانا بس أديك أول مرن كسوع محا دمستاس محا كلفي دad oo wada hadla xaaladiisa إيش شغلة صعدة la garab taagan ayaan ahayne dhibaatada adiga ku hayso oo aad lagu dimisay maxay ahayd walaalo mase taleefankaada adigu aadan gacanta aadan ku hayno lala maamulayo ahayd horta ninka Yuusuf inta badan wuxuu caado u leeyahay markii la baco oo la doonayo in su'aal la weydiiyo oo ku saabsan qoyskiisa iyo qaab uu raadinayo waxa uu ka marmeerestaa sidoo kale taleefan ma qabto daa su'aal macnaha isku dhacsan yihiin horta madan kuu sheegayso waxaan jeclaa arta taas iyo jawaab adigoo maasan aadana kaga caroonay runtii waana ka xumaanay marka bal waxaan rabaa inaad nooga jawaabto taleefon waxaad noogu dudumayso walaalow dad waxaan kaa biginoo gaar oo dhibaatahayna ma jirin dad kula shaqeeyaan ahayn si aad qoyska ula midoobileed adigaa baraha bulsho isoo dhigay adigaa meediyaha dul yimid marka walaalow maxaad boqolka mar noogu dumisay adigoo maasan taleefonka aniga مقدشو وان كسو تاي hargeysana kaska baafiyano ma garan waa gart hargeysa markaan imaadeen wariyaasha Soomaaliland waa kulunay wakiil baahnii laba dhex wariye intii daba istaago oo anaga fadeexinayo oo anaga iga daba dhaqaaqayo adigu mooyin horta wariye kala ma hayo ma garatay walaal maxaan ka fadeexay miyaa aniga wax kugu sheegay hadal gefa oo aniga iga dhacay oo adiga aan ka sheegay miyaa jira ceeb aan kuma aqaano meelaan ceebtaada ku arkay ma jirto meelaan fadaxa ku samaynaysa maan arkin dadkii kula noolaa heladaadii qaraabadii aad isla nooleedeen isku dhex jirteen isla joogteen ayaan war ka qaaday oon wareystay waxaad leedahay maxaad u wareysatay miyaad igu haysataa oo taas maad u haysataa walaalow yuusuf anu meela wax kugu yiri keliya kacan kugu yiri hadday jirto iisoo sheeg walaalow mase waxaad uga haysataa maxaad dadka wareystaad uga haysataa aniga haddaan reerkay heli ama dhibaato kugu sugnay ma reerkaada ama hel ama waa laakiin aniga reerkaada inaad hesho waxaan ka wada shaqaynaynay laakiin aniga waxaan dhibaato ku ah oo aniga aan hor istaag miyaan reerkaada ha heli miyaan ku yiri miyaan hor istaagay miyaan diiday miyaan ka hor imid waxaan kugu haysta mataqaanaa aniyo maxamed oo hargeysa joogo intaadna soo wacday baa tir wareysi baad ka qaadayaa wareysiga marka naga qaadina sawir qarsoodi naga qaaday markaas waxa tir Yuusuf walaal aniga kulma joogo fiiri Yuusuf horta qadamin aniga kulma joogo sawirna kaama qaadi karo oo waxaan joognaa Yurub iyo Afrikaan kala joognaa sawirna kaama qaadi karo si wax ka yiin ma garan karo laakiin waxaan rabaa wareysiga aan ka qaadana wareysi meedii ku soo wacay oo warbaahin ku soo wacday adiga waxay ku soo wacday inay wareysi ka qaado waana ku sheegnaa inaan warbaahinna ogtahay nimankaas Yuusuf waxaan ka qaadana wareysi ما فهمت marka wareysiga ma marka inaad wareysiga dhibaatada wareysiga uu yahay oo dhib ku waay maxay tahay dhibka ku waay wixii lagu weydiiyaa iyo ma yaad ku jawaabi kartaa waxaan ka rabo mataqaanaa ma su'aasha iga jawaab wareysiga dhibka ku waay maxay tahay iyo ma yaa umba ku jawaabi kartaa wareysigu miyaa dhibaatada uu leeyahay shaq ana horta aad ii dhageyso inta oo habala faraha badan iska bedel hadalka waxa laga qaataa wax yar oo muhiim ah ma garan سؤال يوديسي فيري سؤال يوديسي سؤال شان كذا جوابي سؤال شان سؤال كوسو كورجي سؤال شان أخي جوابته ملك يا لادي واحد يوديسي واحد يوديسي واحد يوديسي صور قرض هذه قاعدتي أنا كل ما جو صور ركام قاعد واحد ورثي بعد كده دوت ورثي أدوها سكون من ورثي عيبان كوري واحد كان عاد يودي كرتمية جري إيش واحد بستيش مرك أنا ورثي أنا بيجا قاعدوا يعني كهرت وهرت فيه دقيسان هرت أو هذا وحنا هذا لا محكمة أنت عندك سوء حري سمالها قولي له واحد يقول سوء ألو يوسف هي شو حير كده وحقوق
ninkii Yuusuf ahaa waa arkaysay macnaha wuxuu ka wareegsanayaa in su'aal la weydiiyo wiilka inoo wareysanayana xogaha uu ka dhacsan yahay wiilka Yuusuf ah wuxuu warbaahinta ku haystaa maxaa macnaha arrintii uga hadashaa inta badan waxaa jirta in arrintiisu aan ka hadlaynay inuu aan qayb ka ahayn cadaalad raadinta iyo siduu qoysku heli lahaa laakiin maanta oo isagoo dhacaan laga qaadin uu qoys sheegtay taasoo macnaha annagu haddii ay nahay dadka Soomaalida warbaahinta ku jira aad ugu soo horjeedsanay sabab maxay tahay wiilkan wuxuu inoo sheegay hadda ka hor inuu qoys raacay qoyskii ay dhibaateeyeen inkastoo qoyskii ay hadleen oo macnaha la yiraahday annaga kumaana dhalin uu maanta diyaar u yahay cid kastoo Yuusuf sheegato maadaama uu yahay baadi maqan oo dee waagii burburkana ay dad badan ay dhumeen qoysaskii sheegtay ay aad u tiro badnaayeen in macnaha Yuusuf uu ku qanco kali ah in macnaha dhacaanka laga qaado wax la yiraahdo dhinaca anaga annaguna macnaha arrinta ay waan soo dhaweynay qayb baan ka hayn dadka macnaha la raadinayay waxaan malaynayaa muuqaalkii toddobaad ee aan ka sameeyay inuu yahay kan hadda aan macnaha ka dhex hadlayo laakiin Yuusuf muxuu sameeyay go'aankii aan isku ogeyn isagu ma ka baxay macnaha qofka macnaha khiyaanada sameeyo kuma isagoo qoyskiisa helin ayuu wuxuu sheegay in qoyskiisu u helay reerna uu raacay haddana waxaa jirto oo dhibaatada weyn keentay warbaahinta Soomaaliyeedna macnaha arrinta aad wax naqa ka mid ah Yuusuf waxaa jirtay waalidiin tiro badan oo sheegtay 22 waalid baa sheegteen waxayna diyaar u ahaayeen in macnaha dhiig laga qaado sabab maxay tahay wiil kasta mise waalid kasta wuxuu rabay in uu ogaado qofka saxda Yuusuf uu yahay Yuusuf wuxuu ahaa shakhsi la isku haystay dadkii waalidiinta ahaa ee shalay u cadaalad falaynay ee aan ku haynay Yuusuf inaga miina dhalin ilaa inta lacag keentaan aad isbaartaan Yuusuf la baaro qofka saxda Yuusuf inaad dhalay intii la ogaanayo Yuusuf dadka dhan u dhaxaya shalay hadii aan ku haynay bal ka warma ninkiisa isku hayn intuu qoys ka raaco isla markaana u dhaaniyo qoyskii waa helay bal ka warma Yuusuf wuxuu sameeyay ninkii macalinka jaamacadda Hargeysa ka ahaa mas'uul ka ahaa u dan sheegtay warbaahintana baray ee warbaahinta qofkeen u hore ahaa ee listiga waalidiinta iska qorayeen lacagaha loo soo dirsanay ilaa hadda lacagaha hayo hadii balkoon Yuusuf uu ka booday ka warama haduu bal qofka maanta aflagaadeynay ka warama Yuusuf marka Yuusuf horta waa qof noocaas ah codkana saasa looga duway jawaaban umuusan helin wax macnaha dhiig laga qaado ma jirto qoyska iska raacay hadii uu biri ugu soo laabto dhaho macnaha aniga waalidkii aan raadinaya oo qoyska macnaha waalidkii uma haduu dhaho waa asay hor u taalo eerigin madarxiisa